bishaaro dadweynow idinkuna bilkhayr dhaha dukaanka Badar aad ka heli doontaan waxyaabaha ugu baahantiin quutul daruuriga sida bariiska baastada cabitaano ceenbaceen ah digirtii saliid macsarada sidoo kale waxaad ka heli kartaan kareemadii iyo cabaayadihii dumarka iyo dhammaan adeegii guriga sida daahiyadii roogagii sijaayadaha salaada waxaa idinkugu diyaarsan dukaanka howlwadeena xirfad sare u leh qaabka macaamiisha loo qanciyo haddaba hamoogaanina hana ka maqnaanina wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir milkiilayaasha dukaanka Badar oo kala ah Khadar iyo Daadir Xasan telefoonada nambaradooda kala ah dukaanku wuxuu ku yaalaa magaalada Fisbaal. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. halkani waa YouTube-keena walaalaha Jarmalka maanta waxa booqasho gaaban ku tagnay dukaanka ganacsiga ee magaalada Fisbaal ee Badar iyadoo soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan dadka Soomaaliyeed oo goobtaasi degan waxay muujinayaan diyaar garow aad u weyn waxaan nasiib u yeelanay fursad u helnay inaan wareysano milkiilaha dukaanka Badar. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wa alaykum assalaam warahmatullaahi. su'aasha ugu horeysa ku weydiinayna waxay tahay mudane sidee aad ugu diyaar garowdeen bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama Badar ganacsiga waad mahadsan tahay walaalaha Germany ee YouTube-kooda oo ka mid ah YouTube-yada ugu wacyigelinta badan iyo hadday tahay xagga diinta iyo dhaqanka iyo isdhexgalka iyo ganacsigaba marka hore horta waan salaamayaa marka labaad waxaan idinku bishaareynaa bishii Ramadaan inay soo fursaatay diyaar garow xoog leh weeye oo marka koowaad iyo dhaqankii aanu nagu lahayn Ramadaan iyo adeegeedii iyo timirteedii iyo suxuurteedii iyo afurkeedii iyo sharaabadeedii iyo aad baa loo daldalanayay Soomaaliduna isku soo baxday bisha waa laga dareemayay magaalada Fisbaal dhaqaaqeeda iyo nawaaxigeeda dadka deganba taasaan ka hadlayaa waxaan ku sii xigi doonaa insha Allah u diyaar garowga ciida Ramadaan kadib sida ka dhawaajisay mas'uul waxa ku xigtay ciidii fidriga ahayd miyaa jira fursad ma u suurtagelinaysaa dadka Soomaaliyeed ee caruurta halkaan ku dhalatay oo halkaan ku nool sidii darka hidaa dhaqankii inay jaanis u helaan fursadaas in badan baan ku fakaraynay insha Allah ta'ala way suurtageli doontaa hadii xanidaadahan cirka iyo dhulkaba oo xanuunkan Ilaahay naga hayo coronavirus oo uu saameeyay wax soo gelitaankii wax bixitaankii wadamadan soo gelay insha Allah kadib bisha Ramadaan saacadii caadiga miyaa dukaanka la furayaa mise isbedel ku imaan doono ma caadi ahaan dukaanku sidoo u furnaan jiray 9 subaxnimo ilaa 10 fiidnimo abaaro ayuu u furan yahay insha Allah waa mahadsantahay aad baad u mahadsantihiin kaasi wuxuu ahaa Daadir Xasan milkiilaha dukaanka oo warbixin laga siinay diyaar garowga dukaanka Badar ee bisha barakeysan ee Ramadaan intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijkeena maanta ee kulanti dambe oo xiiso leh